guriga mucjisada waa guri mar waliba oo habeenkii saqda dhex markii la gaaro waxaa la arkay guriga mar walba saqda dhex habeenkii la gaaro qaybta kushiinka ama qaybta cunada lagu karinayo iyo suuliga oo qubayska ayaa dab aan caadi ahayn ka kacayo marka dabkaas ma gudbayo suuliga iyo kushiinka ama jikada qof walba soo yaqaano reerkii guriga degnaa way la yaabeen way la tacjibeen waxay la noqotay arrin la yaab leh runtii gurigan mar walba dabka isaga kacayo kushiinka iyo suuliga qubayska way la yaabeen waxay dhaheen maxay tahay mucjisadan gurigan habeenkii markii saqada dhex la gaaro oo kaliya dabkan ka kacayo tan dabkan ama meel kale gaarin maxay tahay dadkii arintii waxay ku noqotay arrin mucjiso ah oo aad iyo aad u mashquulisay runtii waxay u tageen nin oo dadkan cilmi nafsiga yaqaano ayaa loo tagay kadib ninkii markii loo tagay kadib waxaa la dhahay gurigeenan noogu imow waxaan doonaynaa gurigan arrinta ka jirta inaad noo baartid oo xaaladda guriga jirta noo ogaatid marka waxaa dhacday ninkii guriga ayuu baaritaan ku sameeyey xagga cilmi nafsiga iyo waxyaabahan ayuu baaritaan ugu sameeyey wuxuu dhahay gurigan xaaladan caadihin ayaa ka jirta marka aniga iyo culimmada kale ee isla shaqeyno ayaa hal mar gurigan imaanayno waxaan doonaynaa gurigan inaad ka guurtaan guri ka fogna ha degina guri u dhow dega dadkii arrintii way ku raaceen gurigii way ka guureen gurigii markay ku guureen guri ku dhow ay degeen ayaa waxaa imaaday gurigii dadkii arrinta loo xil saaray inay baaraan dadka cilmi nafsiga iyo waxyaabahan sixirkii waxaa baaro ay ahayeen gurigii baaritaan ay ku bilaabeen gurigii waxay ka arkeen in guriga uu degan yahay guriga inta uu ka dhisan yahay oo dhan inuu yahay guri uu degan yahay jin awal dhulkaas dhul bannaan caadi u ahaa weligiis lama dhisanin dadkan dhulka way iibsadeen waa ninka lahaa weligiis ma dhisan dhul bannaan asigoo ayuu iibsaday iyaga ayuu kasii iibiyey asigoo bannaan iyagana markaasay dhisteen marka meeshan waxay ahayd magaalo koonaheeda ama magaaladu meel xoogaa yar ka durugsan ayuu gurigu ay ka dhisteen waxay diideen buuqa iyo probleemka bulshada ay kasoo dhexbaxeen waayo guriga aabihiis wuxuu ka shaqaynaya bangi wuxuu isdhahay gurigan ayaa kuu fiican markaad shaqada kasoo laabatid gurigan ayaa maskaxda ku degsan kartaa markay baaritaan ku sameeyeen waxay soo saareen inuu guriga yahay guri jin uu degan yahay dabkaasna uu yahay dab si olakaca loo kicinayo si idinka nigul oo dadka degan guriga loo khalkhalgeliyo arrintii markay soo baareen dadkii ay imaadeen waxay dhaheen guriga xaaladaas ayaa ka jirta jin ayaa degan oo probleemkaas ayaa ka jira dabkaasna waxaa loo kicinayaa mar walbo in idinka nigula khalkhalgeliyo saa u baqataan oo guriga ugu carartaan dadkii khalkhal ayaa ku dhacay waxay dhaheen guri noocaas oo kale ama ku noqonayno waa isaga tegayna ama meeshaanaan degnaanayna ama meesha meel ka fogaan tegaynaa aabbihii guriga wuxuu go-aan ku gaaray inuu caruurtiisa iyo xaaskiisa magaalada gudaha u rarto shaqada uu iyo gurigiisa meel isu dhow yihiin oo xaalad caruurtiisa marwalba uu kala socon karo inuu dego nasiib wanaag way soo guureen gurigiina sidii ay ugu soo tageen hadda alaab kama soo baxsanin way ka baqdeen naftooda kala baqdeen way isaga soo carreen marka waxaa dhacday gurigii cusub ee magaalada ay soo degeen ugu dambeyntii gurigii way la qabsadeen magaalada oo waxaa dhacday in muddo ah ilaa iyo 4 bilood 5 bilood inay arrintii meesha ka baxday oo wax saq dhex soo gubanaya ama problem la dareemay saqda dhex aanan jirin waxa ay iska dhaadhiciyeen oo maskaxdooda gashay oo arrintii hore ilaawsiisay ilaa iyo muddo ah inay waxaas ay ilaawaan oo gurigii uu kusoo naqdo guri caadi ah waxayna aamineen inuu problemka ah gurigaas oo kaliya ama gurigaas le problemka inuu ku haysto oo halkaan problemka uusan ku haysan ay aamineen waa maskaxdooda ayaa taa gashay run ahaantii waxaa dhacday habeenada ka mid ah xilligii dab uu kici jiray markii la gaaray aabbihii ayaa wuxuu u soo baxday suuligii markuu soo baxday wuu soo kacay
وصو صعدي وحو مخلي الشنقر dad is-eersanaayo kale ayuu ka dhex maqlay guriga dhexdiisa xagga meesha uu socday oo suuliga dhinaciisa ahaa ayuu ka maqlay dad aad u is-eersanaayo kale shanqarta dadkoo kale ama laba qof oo is-eersanayso kale ayuu ka dhex maqlay marka waxaa dhacday wuu ka cabsaday wuu naxay wuxuu is-dhahaysay camal xaaladan maxay tahay xilligaa cid is-eersanaysa maxay tahay haddana wuxuu u fahmay nin oday buu ahaa wiilkiisa iyo xaaskiisa in xilligaas waqti dhalinyarada ku jiraan oo qubays soo kaceen oo meelaha kaftan iyo orod ay ku hayaan ay u fahmay marka waxaa dhacday xoogaa iska fariistay oo guri kamid ah oo suuligan intaan la gaarin ayuu kursi meesha ku fariistay si uu sugo intay ka soo dhamaanayaan suuliga kadib uu markaa galo ilaan wiilkiina maahan gabadhii uu wiilkiisa qabana maahan dad iska hurdo ayuu u moodaa inuu meesha isku circirsanayo markuu suga ilaa inuu saaco kale wuu qaadan waayo inuu suuliga ku gargaraaco ama suuliga u dhawaado codkiisa maqashiyo isku dayay ilaa suuligii cid kuma jirtee borbaleemkii gurigaas ka jiray borbaleemka weyn ayaa gurigaas uga soo horeeyo dadkii ay dul degnaayeen ayaa waxay u arkeen codow dhibaato fara badan ku hayay haddana ka soo baxsaday oo arkeen inay ka argutaan ay u socdaan marka wuu yaabay shanqartii way istaagtay markuu suuligu dhawaaday wuu iska furay wuu galay cid kuma jirto laakiin markuu fadhiyay wuxuu maqlayay orod is-ceersi caadi ah qof agtaada ordayo kale caadi shanqarta caadiga maahane loo maleynayaa iyo amay tahay maaha shanqar caadi uu maqlayay oo qof laba qof is-ceersanaysa ilaa intaa qof oo kale ayuu maqlayay marka waxaa dhacday suuligiisa ayuu galay asigoo khalkhalsan intaan dhan meesha ku xiriirnaa shanqartii u maqlayn uu waayay markuu suuligu dhawaaday suuligii ayuu galay xaaladiisuu soo dhammaystay markuu xaaladii soo dhammaystay kadib asigoo isdhahaya ka soo bax ayaa hal mar xagga dambe loo jiitay waxaa lagu tuuray fadhigii lagu fadhiisanaya suuliga ayaa dhabarka loo geliyay ninkii qaylo afka goostay isla markii caruurtiisii iyo familkii guriga hal maraa lasoo wada naxay waa lasoo wada kacay aabbihii waxaa la arkay dhabarkii oo dhan kala jaban yahay oo suuliga dhex yaalo iyo badbaadiyada ku hayaa la arkay wiilkiisiyaa soo saaray isla markii booliska loo wacay xaaladii ayaa loo sheegay aabasuuy ayuu galaan lahay kadib suuligii ilaan suuligii kuma xirna kaamirsiisii kuma xirna balla la arki karo qofku wuxuu ku dhacay marka waxaa loo fahmay ninkan inuu nin da-yahay uu suuliga ku taraaraxay ama lugta u baxda ayaa loo fahmay askarta inta badan saas iska dhaadhiciyeen qaarna waxay dhaheen xaaladan in la baaray oo loo baahan yahay marka odaygii wuxuu dhahay aniga ma dhicin wax iga taweynaa dhabarka iga qabtay oo meesha igu dhex riday ayuu dhahay xaaladii iyo sugitaankii wuxuu ugu sheekeeyey askarta waxay dhaheen anaga xaaladan dushan kala soconaynaa laakiin xaaladan waxay u baahan tahay dadka saaxiriinta ama dadka waxyaabahan oo kale ku shaqlay u baahan tahay anaga laakiin xaaladiina dushan kala soconaynaa dadkaas waa inaad u yeertaan waa loo yeeray dadkii ninkii sixroolihii magaalada ugu weyna markii loo wacay albaabka markuu ka soo galay ayaa waxaa loo tuuray ilaa 5 mitir ilaa 6 mitir ayaa dib loo tuuray odaygii asigoo sidiisii ah oo waxaad moodaa in la qabtay oo hal mar la tuuray laakiin odaygu wuxuu ahaa nin adag buu ahaa wuxuu dhahay ii soo qabta gaarigiisa wax kaga soo tagayoo shaydaanka iyo jinka iyo balaayo inuu iskaga xijaabo uu aaminsan yahay ayuu gaarigii ugu soo tagay waa lagala soo carray ardaydiisa la socotay la soo carartay wixii akhriyay guriguu soo galay waxbuu halkan u daadiyey biyo ah sahliishoo kale ayuu halkaan u daadiyey dadkii way yaaban yihiin odayga wax ku dhacay la yaabay wuxuu leeyahay hayla hadlina dagaal baan ku jira hayla hadlina ayuu leeyahay odaygii marka waxaa dhacday markiiba xaaladii wuu soo afjaray wuxuu dhahay dadkan aniga iyaga ayaa is ugaarsanayno waxaan doonayaa inaad guriga wax iga siisaan qolkaas aan dego dadkan intaan aniga qolkaan deganahay gurigan kuma soo xadgudbi karaan anigaa hlucinayay anigaa gubaaya ayuu dhahay ninkan marka dadku way yaabeen waxay dhaheen xaaladan idinka gurigiina ka jirta maxay tahay guri ayaan dhibaato iyo mucjiso ugu soo guurno gurigana ma naga daba timid
marka waxay dhaheen uu dhahay ninka kaahinka ah ama sixroolo ah wuxuu dhahay aniga ayaa xaaladan meel saaraya dadkan dad nafsadiina u socdo waaye oo nafsi idin qabaan waxay doonayeen inay idin baabi'iyaan waa dad guri iyaga ay lahaayeen guri aad ka dul dhisateen dhibaatadaas iyo ilaa hadda uqdaas idin qabaan marka waxay rabaan inay idin baabi'iyaan marka waxa daruuri ah aniga ama nin aniga ilimid ah inuu idin la dego oo mar walba guriga ducada ku akhriyo si idinkana ay ku badbaadaan qoyskiina ugu dhistaan dadkaas ilaa hadda ninkaas xoolaha ayaa la degan arintan waxay ka dhacday wadanka Mexico dhibaatadaas qoyskaas weligiisa daba taagan arintan waxay dhacday 1988 ilaa hadda 2021 kala taagan yahay qoyskaas waxaa la degan nin sixiroola ah oo guriga wax ku akhriya si ay ugu badbaadaan shaydaamadaas marka aday arintaas maxay kula tahay sidee kula muuqataa in 24 saac badbaadada aad ka raadsan sixiroola marka anaga haddana islaam badbaadin ilaaha noo hayo dadkan caalamka joogan iyo wadamadan America iyo meelahaas ku nool dad waxa way problemkooda iska badan yahay dhibaatadooda iska badan tahay marka masiibooyinkan ilaaha ayaa ku imtixaamay marka waxaan idin leenahay mar walba inaad ilaahay aamintaan ayaa idin roon dadkaas hadda waxay aamineen sixroolaas inuu arintooda xalinaayo laakiin haday quraan isaga akhrinayaan guriga ama ilaahay aamin lahayn waxa laga yaabaa inuu arintan ka soo afjaro arin ku bilaawatay 88 iyo hadeer oo 2021 kala taagan yahay waa dhowr iyo 30 sano marka intaas oo dhan qoys walba awoowihii aabihii dhintay awoowihii wixii familkii soo gargar gurigiina inay ka guuraan marwaan waayo guri hadii ka guuraan da guri hore arinta ugu soo guureen arintu way daba taagan tahay marka waxaan ku leeyahay walaal qof muslimaad tahay mar walba amin ilaahay in wax walba ka dul qaadi karo mar walbana amin ilaahay oo kaliya dhibaatada walba ka xalin karo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh